السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا وركا جنالكينا حogta dalka qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona xasan sheekh maxamuud oo taageero badan ka helaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya taabid cabdi maxamed oo ka hadlay dhibaatooyinka shacabka Soomaaliyeed heesta mahad salaad oo niyad ku riday kooxda filla Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo baarlamaanka farta ugu fiiqay shakhsiga mudan xilka madaxweynaha Soomaaliya wararkaasi warar kale oo xiiso badan ayaa daawadayaal warka janaalkeena xogteeda kugu soo gudbin doona haddaba daawada haddii aad janaalkeena xogta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena like share commentiga noogu dadaala aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa taageero badan ka helaya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa la sheegayaa in ku dhawaad 186 mudane oo ka tirsan baarlamaanka qeybihiisa kala duwan ayaa hadda waxay u ballan qaadeen in uu codka ay siin doonaan waxaana xildhibaanadani la sheegay in ay gebi ahaanba idhaar ay u mareen Xasan Sheekh Maxamuud xasan sheekh maxamuud ayaa waxa la sheegay in kooxdiisa kaambeenka ah ay guuleysatay wararkii ugu dambeeyay ayaana waxay tilmaamayaan in xildhibaanadani 180 kor u dhaafay in ay faa'iido fara badan ugu jirto xasan sheekh maxamuud ballanqaadyadan uu haysto xasan sheekh ayaa ka dhigan in durbaba uu saameyntiisa uu la soo baxayo sida wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay ayaa sidoo kale waxay tilmaamayaan in xasan sheekh uu qarash fara badan uu ku bixinayo sidii xisbigiisa mar kale talada dalka Soomaaliya ay gacanta ugu dhigi lahaayeen inkastoo 5 sano ee la soo dhaafay xasan sheekh uu ahaa shakhsi dibad joog ka ah siyaasadda Soomaaliya waxa uu mar kale uu doonayaa in uu si awood ah uu ku qabsado xilka madaxweynaha Soomaaliya awoodiisa ugu weyn ayaa ah inuu adeegsado xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa si weyn ugu dadaalaya musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu haystaa koox kaambeen gareynaysa doorashadiisa oo juhdi iyo dadaal badan ku bixinayso sida uu guuleysan lahaa qof walba ayaa hadal haysa hanka doorashada Soomaaliya wax waliba meesha ay mari doonaan iyadoo qof walba ay wada sugayso natiijada rasmiga ah ee doorashada Soomaaliya ka soo bixi doonto doorashadan ayaa waxay u muuqanaysaa in durbaba saameynteeda ay taagan tahay xilli siyaasiyiinta ay si weyn indhaha ugu wada hayaan waxa ka soo kordhi kara teendhada afisyooni xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa la tilmaamay in dhammaan xildhibaanada Puntland iyo Jubbaland Hirshabelle iyo Galmudug qaybo ka mid ah gacantiisa ay ku jiraan isla markaana hadda ay u muuqanayso in uu ku guuleysan karo xilka madaxweynaha Soomaaliya madaxweynihii hore ee Soomaaliya 5 sano kadib xasan sheekh maxamuud ayaa u muuqanaya in talada uu dalka uu la wareegi doono haddii waxba aysan isbedelin taageerayaasha xasan sheekh iyo dhammaanba shacabka reer Muqdisho qaarkood ayaa waxay yihiin kuwa si weyn u soo dhaweynaya go'aamada iyo sidoo kale juhdiga ay bixinayaan xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya si la mid ah mahad salaad oo kooxda ololaha xasan sheekh ka mid ah ayaa waxa uu niyad ku riday kooxda filla Soomaaliya xildhibaan mahad salaad oo looga bartay dacayadeynta joogtada ah ee kooxdan ayaa hadda waxa uu sheegay inuu gobolkeeda uu dhacay isla markaana ayna mudnayn inay dalka ay ku sii sugnaadaan shakhsiyaadkii iyo saraakiisha dhibaatooyinka kala duwan ka geystay magaalada tani caasimadda Muqdisho kooxdan ayaa waxa ay mar walba ay sheegaysaa in ay dhibaatooyin ay la kulmi doonaan markastana ay doonayaan inay shacabka ay carqaladeeyaan ayuu yiri mahad salaad ayaa lagu tiriyaa shakhsiyaadka sida weyn u dhaliila hanaan siyaasadeedka kooxda filla Soomaaliya xildhibaan mahad salaad ayaana waxa uu sheegay in sanadkan ay dabaaldegyo waaweyn ay ku sameyn doonaan Muqdisho waa haddii gebi ahaanba ay ka adkaadaan kooxda uu hogaamiyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo daaqadana laga saaro boorar waaweyn ayay samaysatay kooxda UPD oo mahad salaad uu ka mid yahay waxaana la sheegayaa in asiga iyo Abdiraxmaan Odowa ay kaambeenkii ugu dambeeyay uu ku guuleysan karo xasan sheekh maxamuud ay sameynayaan xasan sheekh ayaana hadda waxa uu muuqanayaa inuu taageero badan uu ka helayo mahad salaad Abdiraxmaan Odowa iyo xildhibaano kale oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa la wada sugayaa sida kooxdan ay u guuleysan karto xisbiga UPD ayaana hadda u muuqanaya inuu niyad wanaagsan uu gacanta uu ku haysto niyad wanaaga ugu sareysa ayaa waxay tahay in ka badan 180 xildhibaan oo xasan sheekh maxamuud hadda ay niyadda u qaboojiyeen xaflado waaweyn ayaa Muqdisho ka socdo kuwa uu soo qaban qaabiyay xildhibaan mahad salaad xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaana ka qayb qaadanaya munaasabadahaasi sida weyn loogu dabaaldegayo in uu guul
guuleysto xasan sheekh maxamuud. dhanka kalena taabid cabdi maxamed ayaa ka hadlay dhibaatooyinka shacabka magaalada muqdisho haysta. taabid cabdi maxamed gudoomiyihii hore ee gobolka ayaa waxa uu sheegay in reer muqdisho ay dhibane u yihiin madaxweyne farmaajo, waxaana uu sheegay in mar walba loo baahan yahay in shacabka reer muqdisho la samata bixiyo, xaalad kasta oo adag ay ku jiraan haatan laga gudbo. taabid cabdi maxamed ayaa waxa uu tilmaamay in shacabku ay mar walba u baahan yihiin in la samata bixiyo, haddana uu ka rajeynayay inay baarlamaanka Soomaaliya ay badbaadiyaan. taabid ayaa waxa uu sheegay 5 sano ee farmaajo in dalka ay ka dhaceen dhibaatooyin badan, haba ugu horeysay dhiibistii qalbi dhagax oo ay ku fashilmay farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa waqtigaasi xasan cali kheyre. labaduba hadda waxay u sharaxan yihiin ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya, anigii lama ahan ayuu yiri inay ku guuleysan karaan xilkaasi. gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir taabid cabdi maxamed ayaa waxa uu sheegay in shacabka reer muqdisho haddii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya uu samata bixin doono, isla markaana uu ka farxin doono. waxaan ballan qaadayaa in shacabka gibi ahaanba wadooyin ayna ka xirmi doonin, isla markaana cid kastoo isku daydo wado inay ka xirto aan tallaabo ka qaadi doono ayuu yiri haddii aan ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya. taabid cabdi maxamed oo sanado kadib muqdisho maalmo ka hor dib ugu soo laabtay ayaa durbaba ka bilaabay muqdisho ololihiisa. kooxda taabid cabdi maxamed ayaana hadda waxay u muuqanaysaa in baraha bulshada ay durbaba ay la wareegeen. boorar sawirada taabid cabdi maxamed lagu soo xadhay ayaa magaalada muqdisho suran. magaalada muqdisho ayaana ka duwan jawiyadii hore, qof walba waxay hadalhaysaa doorashadu, waxaana ganacsiga qeybihiisa kala duwan u muuqanayaa mid hakad ku jiro. shacabka reer muqdishona indhaha waxay ku taagayaan teendhada Afisoni iyo in farmaajo aan loo soo celin ayay rabaan shacabka Soomaaliyeed. teendhada Afisoni ayaa la wada sugayaa maalinta Axadda waxa ka soo bixi doono. dhanka kalena Axmed Macalin Fiqi ayaa baarlamaanka Soomaaliya farta ugu fiiqay shakhsiga mudan xilka madaxweynaha Soomaaliya. xildhibaan hore ahna wasiirkii hore ee amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay inuu aad ula socdo xaaladaha guud ee dalka, isagoona sheegay in dalka haatan uu samata bixin karo Cabdikariin Guuleed. waxaana uu sheegay in Cabdikariin Guuleed uu yahay shakhsi mudan inay baarlamaanka Soomaaliya ay doortaan. waxaana uu sheegay Axmed Macalin Fiqi in mar waliba loo baahan yahay in dalka isbedel uu yeesho. waxaa sidoo kale uu ka hadlay xaaladaha kala duwan ee qaraxyada ee magaalada Muqdisho ka dhacay. Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu sheegay in qaraxyada ka dhacay magaalada Muqdisho ay doonayaan kooxda filla Soomaaliya inay ku carqaladeeyaan doorashada teendhada Afisoni ka dhacayso. ma jiri doonto cid carqaladeyn karto, mana dhici doonto in amniga qalqal la geliyo. kooxdan gobolkeeda waa uu dhacay, marnabana ma suuragelaysa ayuu yiri Axmed Macalin Fiqi. kooxdan ayaana waxaa lagu tirayaa in ay dadaalo badan ay hadda ay bixinayso. Axmed Macalin Fiqi ayaa hadda waxa uu rajadiisu ugu weyn ay tahay in Cabdikariin Xuseen Guuleed loo doorto madaxweynaha Soomaaliya. guud ahaan daawadayaal, warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena xogta dalka saaxiibayaal waanaga intaa. haddaba daawaday haddii aad janaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar janaalka, wararkeena like, share iyo commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.